arrintuna waxay ahayd in qof muwaadina oo nin ah uu xafiiska gudoomiyaha maxkamadda soo galay isagoo isla saxan oo dabcan la socda dad dacwada leh laakiin u lebisan qaab anshax darro ah oo dhar jeexjeexan oo hilibkiisii iyo jidhkiisii ay ahayd inuu asturo ay muuqanayaan bawdiyihiisii ruugagiisii iyo surwaal faylfaylan oo aynaan inagu garanayn waxaynu ku tilmaano saa daraaddeed maxkamaddu waxay amartay inaan la ogolaan karin habdhaqankan wayna xidhay hase yeeshee annagoo eegayna waxyaalo fara badan tudhaale iyo haddana inaanu dhaqankan suulino waxaan amray in waalidkiisu ay soo iibiyaan surwaal astura jidhkiisa isla markaana kan ka bixiyaan oo kan dab la suro sidii bayna waalidkii yeeleen waan mahad celinayaa aabbihii baa ii yimi